warwaa anigoo ka hadhiina meeshaad halkaad igala socotaana waa youtube-kayga aad iyo aad baan idiin salaamayaa meel waxaan joogaa aad iyo aad cajiib ah oo qurux badan sida arkaysaan sidaas baa loo hagaajiyey dadku ummadooda way u qurxiyaan dhulka way nadiifiyaan qashinkay ka ilaaliyaan meesha waxaa kaloo usii dheer annaga dadka qabuuraha dadka Soomaaliyeed markii la aaso qabuuro ciidda inta lagu rogay meesha rafaad iyo raf iyo dadku way ka baqaan markay ag marayaan horta meesha aan hadda fiidiyooyinka ka duubayo waxay leedahay saa aragtaan kuraas la fariisto soo ma aragtaan dhinaca waxa uga yaala geedo dhulka naqba aad baa loo hagaajiyey way qurux badan tahay qabuuraha waxay uga yaalaan meelo cabaar ka fog oo laakiin kala yara durugsan waan idin tusi doonaa halka hadda aragtaan ubax aad u qurux badan oo kala nooc ah ayay leedahay oo cajiib ah meesha ay dadku fariisanayaan kuraas baa leedahay meesha caadiga rabtid inaad martidna waa laamigaas wadadaas baad ku soconaysaa halka kore waxaad ka arkaysaan waa kiniisad birta dheer kiniisad baa iskala dhulka saan dareemayo oo inta badan qabuuraha wadanka waxaa kiniisada dhul u iibisa marka dhulka kiniisada iskale marka hadhowna dadka waa laga gataa runtii qofka kiniisada ay lagu meel walbo dad muslim iyo dad aan diin lahayn iyo kuwa waxay rabaan bilaadanka dhanba kiniisada dhinaceeda lagu aasaa ma jiraan qabuuro maxaa la dhahaa ay islaamku gooni u leeyihiin waxaan idin sheegayaa kala cajiib soo qurux badan tahay halka waa qabuuraha sidaad u jeedaan waan idin ageyn doonaa meel walba socodka markaad yara ku maraysid waxay leedahay meel qashinka lagu tuuro halka waa meel yar oo iska quruxsan kuraas halkaas kursi yaala labada qof isku shukaansan meesha waxa yaala meel lagu daadiyo maxaa la dhahaa qashinka marka wixii waraaq iyo waxaas iyo glass iyo waxaas waxaad ku ridaysaa meeshan wixii kale cunto iyo waxyaabaha kalena meeshan baa ku tuuraysaa waxay leedahay biyo haddaad rabtid inaad ka cabtid waa kan meeshan soo ma aragtaan halkaasaad taabanaysaa soo tuubadaasaad weel uga shubanaysaa waxaa wadatid saad ku cabaysaa meel walba waxay leedahay markaa 10 ilaa markaa socotidba waxaa yaala qashinkii saa dhulka qashinku ugu tuurin annaga wadankeena qashinka ayaa lagu tuuraa intuu qofkii iska wax ka qaato laakiin halkaas meeshana wax ku cunaysaa cuntii wax daawadatid waxaan soo socday muddo 40 daqiiqo soo lugeynay marka meeshan quruxda badan baa iska soo leexday waan iskaga nastay waxaan isdhahay marka dadka la wadaag dhowr jeer waan siri halka qabuuraha agteeda in geynayaa sida loo nadaamiyay iyo quruxsan yihiin hadda waxaan dhex lugeynayaa meesha wadada ay dadka caadiga loogu talagalay way kala duwan tahay Soomaaliya xaggaas wada ka baxaysa halka soo si aad iyo aad u qurux badan baa loo hagaajiyo oo loo aasay beritola waa maalintii wadanka xornimada qaatay 17 May wadanka Norway soo halka hadda aragtid qabuuro baa dad baa ku aasan waa qabuuro saas iska yar kursi baa yaala kursigaas baan ku fariisan karaa waad iska daawan kartaa qabuurkaas baad la joogi kartaa oo u sheekeyn kartaa qabri kasta waxa ag yaala dadka qofkiisiba u yimaaday magac iyo xilligu dhintay baa ku qoran wuxuu calankii baa qaar ag yaala oo Britola wadanku wuxuu dabaaldegayaa xornimadiisa ubax yar baa geesaha ka yaala oo aad u qurux badan qaarkood waxa ku jira dhalo yar oo mararka qaar shamac yar baa loo daaraa oo iftiin ah in meel nadaamsan dadkaaga aad jeceshahay ay ku aasan yihiin waa wax aad iyo aad u qurux badan soo si nidaamku
kuwa dhintay iyo kuwa noolba wuxuu u yahay wanaag iyo sharaf buu u yahay runtii inaad meel qurux badan lagu aaso way qurux badan tahay aniga waxaan xasuustaa halka meel caadi oo kala banaan oo cidna lagu aasin dabcan waxa loo diyaariyay dadka in maaragtay kaniisada iskale soo dhul aad iyo aad u balaaran way halka qayb kale ayaa ku aasan qofka xilligu dhintay dhashay 31 bishii koobaad 1976 ayuu dhashay qofka for example haddana wuxuu dhintay 2018 waa xilli aan fogeyn soo qowraha hadda ag maraya waa dad xilli dhow dhintay waa qowro cusub weeye bay u badan yihiin haddaa eegtid maxaa la dhahaa halka anigana qowro kale ku yaala ayagana waa sidoo kale calaamaha qaar oo ka calaamada kristanka ayaa weli qofkaas oo kale waxa laga yaabaa inuu cusub yahay calaamada kristanka meesha ay ugu taalo looma sameeynin dhagaxii muddo qaataa mararka qaar dhagaxa in dadka loo sameeyo qof halkaas waxa u daaran shamici baa u daaran qofkan oo kale hadda qof inta kale waa qabri cusub oo mar dhow la aasay bay ila tahay aniga ciidii iyo calaamada kristanka magaciisa waa ku qoran marka weli dhagax looma sameyn laakiin number iyo waxa ku qoran qaarkood meeshan waa meel kale iyadana cusub in yar baa ku aasan anyway waxaan ka wadaa soo ilaa halka markaan socono dhinacan kale ma aha inaad dhex martid qowro dhexdooda iyo nidaam iyo sharaf ma haddana waa inta qashinkaas ka tuuri kartaa meel kale biyaad ka cabi kartaa kaliga yar baa yaa lacaaga ah meelaha lagu waraabiyaa ubaxyada iyo geedaha wax waraabin u baahan oo lagu habeeyaa aad baa loo nadiifiyo waxa wasaq oo yaala ma lahan waxaad indhahaaga ayaa jeclaysanaya dhulku siduu yahay iyo siduu u qurux badan yahay runtii sharaf bay leeyihiin dadka wadankan iskale oo u shaqaystay wadankooda hagaajiyay annagana waxaa laga laacsan yahay wadankii dadka inay hagaajiyaan meesha aan ku dhashay wasaq iyo qurun baa runtii ka buuxda dadku qashinkay banaan ku tuuraan haddana waxay iskugu arkaan dadka ugu nadaafada badan inay yihiin meelahan hadda halkan kala daarta geedaha laga jaray dabcan waxa la rabaa naq iyo wax in lagu beero la qurxiyo la nadaamiyo dhul laga dhigo waan soo wareegtay hadda waa dhul aad iyo aad weyn halkaas man ka soo galay shisho fog halka wadadii baa marta marka anaga wadankeena waxaan xasuustaa guryaha hadda muqdisho waxa ka soo bilaabanaysa meelo loo dalxino la hagaajiyo nidaamsan oo lagu nasan karo baa dadkii ay sameynayaan laakiin qashinka banaanka dhooman baa wuxuu yahay foolxumo iyo ilxumo iyo wax laga yaqiiqsado geedkan waa geed aan qalalinba xilliga maxaa la dhahaa ii sheeg waana geedka xilliga Christmaska la sharaxo isagoo qoyan ciida maxaa la dhahaa kristanka waa geed aan qalalin xilliga qaboobaha iyo xilliga kuleelkaba sidaas buu iska yahay naqaas baa iska saaran asagu markasta marka meelahan meelo badan buu ku yaala hadda aan dhex marayo halkan iyadana waa meel kale oo qurux badan kursigaas baa iska yaala kaliya waa iska fariisan kartid qowri markaan ka fatigo kuwa dhinacooda kuwan kalena halkaasna kuwa kale naga qabanaya muhiimadda waxaan uga dan lahaa dhowr jeer barnaamijkan ka hadlaa jirta horta kow waa inay Soomaalidu beenta iyo dadka loo sheegay la iska dayo la dhaho qabuuro muslimiin oo Yurub ku yaala ma jiraan qabuuro walba dadka waa isku waxa laga yaabaa qofka muslimka inaa meel gooniyo meel lagu aaso laakiin kaniisada dhulka iska leh marka ma lahan qabuuro ay leeyihiin oo gooni u ah ma jirto muxuu ahaa wixii marka taa mid beena tan koobaad tan labaadna waxaan uga qowrahoodu way ka fiican yihiin wadankeena qowraha si loo aas dadka loo nadaamiyo
magac bay leeyihiin anaga lama ogola magac in lagu dhajiyo qabuurta ayida uga haday dhimatay xitaa qofka Soomaaliga oo asleeda u soo ducee kama dhex garanaysid qabuuraha ama ehelkaaga qofka aad jecleed soo weyd waxa la diidaa in calaamad waxa la yiri waa dambi oo gaalada looga dayanayaa waxa fiican hadii la iskaga daydo aqliyan waa wax wanaagsan in qofkaaga magaciisa aad taqaaniyo meesha ku aasan yahay oo xasuus u timaadid oo aad maaragtay soo booqatid aqliyan way fiican tahay laakiin waxa la yiri asxkuwi Soomaalida berigi dambe iimaanaysaba waligeed horta ma jirin baan u malaynayaa wadaadada caanka in meel loo sameeyo ma ahan ama qof caan ah qof iyo laba caan ah hadhowna meeshaas lagu agdigriyay qof caadi oo magaciisa loo sameeyo ama calaamad loo yeelo ma jirin runtii muddo ka bacdina qabuuraha waa la iska dudumiyaayo dhulka waa la dhisaa wax dhib ma lahan ba hadii xitaa dhulka la dhisanayo waxa la sameeyaa dad yooga halkaan muddo dheer hadii qabriga ku meesha ku jiraan dhulka aan sanado baad gadan kartaa hadhow hadaa dhahdid qofka waxa waa laga saarayaa sidaan maqlay xogta inay runtaa inay beenta ma aqaan hadii kale waa sii dheereysanaysaa waxa kale oo jira inaad qofka la gubo dadka la gubo badankooda oo markii la gubana lagu gasac yarba waxa lagu shubay dhala yar oo daboolan damba ka soo haray qofka ba waxa lagu shubay gasac yar oo daboolan so aad meesha ku heesanaysaa anyway walaalayaal waxaan idin soo gudbinayay meeshaan aan joogo quruxda badan qaybna ay dad intii ku aasan yihiin dadka noolna ay fariisan karaan oo caruuraha inta yimaadaan dadka fariistaan ayay halkaad baaskilada ku wataan cunta lagu cunaa lagama boqo lagama cararo waa la nadiifiyaa meel biyo laga cabo qashinka lagu tuuro lagu sameeyay anagana waa la iska dheereeyaa meelahaas baa inta la fogeeyo dadka laga soo cararaa oo qabuurahoodii baa iska maaragtay iska dayacan waxa inoo dhaxeeya iyo sidii u kala duwan yihiin ayaan idin la wadaagayay shimbiro yar baa iska qaylinaya joogigu aad iyo aad buu qurux badan yahay cirka hadaad ina tuso waa meel waa xilli aan maartay xilli degan qabow saaidna ma jiro kuleylna ma jiro qoraxdii way qarsan tahay waa fiidkii laakiin waa iftiin waxaan ku jirnaa samarkii baa inoo bilaabanaya kuleylihii inuu roob imaan rabaad moodaa mar dhow sidoo cirku u egyahay iyo sidoo jawigu yahayba labada markaa fiirisid inuu roob soo socdo ayaad moodaysaa soo quruxu dhulku yahay waad ku raaxaysanaysaa markaa lugeynaysid aad uma dhididaysid ama hadaad ruxleynaysid waa maalin iska axada jawi degan lagu jiro soo waan idin mahad celinayaa intay daawanaysay inta ila socotaba kala duwanaanshaha dadka iyo sidoo kale nool yihiin waa qurux dadku inay is arkaan wax fiican iska qaataan waxa kalena ay ka tagaan marka isdhexgalka bulshooyinku inay isay kala yihiin ay isdhexgalaan dad kala duwan isla joogaan caafimaad weeye hadii kale Soomaalidu waxay islaylaysaa oo isku necab tahay waxa weeye waa kaligood bay yihiin hal fikir bay qabaan hal wax bay aaminsan yihiin hal dhar bay xirtaan qofka ka duwan ma rabaan waxay rabaan inay dilaan dad cad ma doonayaan inay la noolaadaan Afrikaanta kale u yimaado waxay aaminsan yihiin inay yihiin dad xun oo jareer ah qaxootiga wadankeena ku soo cararo Itoobiyaanka waxaas oo shaqada naga soo doonta haddayna dhihin muslim baa nahay ama aad baa loo cunsuriyaa waa la dhibaateeyaa ama muslimtid waxaas baa lagu dhahaa waxaan arkay maalin hore hargeysanin wadaad oo dhahayay been weeye muslimada way sheegtaan waa beentooda waxba yaan lagu sadaqaysanin waxba yaan la yeelin wadaad ka qaylinaya baan arkay hargeysa soo bal fiiri qof miskiin ah oo wadankii shaqo ka soo doontay oo shaqana waayo raba inuu noolaado wuxuu leeyahay dadkii wax siinaya buu ka hor istaagayaa oo waliba soo sheegay waa run laga yaabaa inuu diintiisa ka been sheego si uu noolaado falxumada wadanka jirteena ku tusaysaa qofka asagoo diintiisa aaminsan inuu ku noolaan karin wadankeena ayay ku muujinaysaa wuxuu ninkaas garan laayahay
kumaan kun iyo malaayiin Soomaali ah inay joogaan wadamo aan muslimiintu ku yar yihiin loo ogolaaday inay tukadaan oo soomaan, shaqooyin la siiyey, xuquuq la siiyey, caafimaad la siiyey, loo ogol yahay maaragtay lacag ay u diraan dadkooda Soomaaliyeed laguna xirinin in diinta ay ka baxaan ama loogu diidan diintooda iyo midabkooda. waxaan leeyahay dadkeenu waxaan rajeynayaa inay ka koraan takoorka xagga dadka kala nool oo diimaha iyo midabka ah, takoorka qofka lagu faquuqayo wuxuu aaminsan yahay, takoorka qofka lagu takoorayo oo shaqo lagu siinayn siduu u eg yahay iyo wuxuu aaminsan yahay qofku yahay. Soomaalida dhexdeeda ayaa istakoorta video ay horaan ka hadlayay aad iyo aad dadku isku takooraan intaan ogahay. qoysba qoyska kale uu takooraa, labku dhadigu takooraa. marka waxaan rajeynayaa inuu takoorku dad ka dhamaado oo ay noqdaan dad caqligu shaqaynayo. dhammaantiin waa mahadsantihiin, waa anigoo Kahadin waxaad igala socotaan YouTube-kayga Kahadin. daawadayaasha waad ku mahadsantihiin, saaxiibadiina la wadaaga. haddaad meelo kale joogtaan oo waa naga sheegi kartaan wadamada kale siday yihiin qowrahoodu. haddaad ila joogin hore saaxiib iyo rukun ka noqo. haddaad hore igula joogtay waan ku salaamayaa, waad mahadsantahay walaal macaan. sii sheer garay asxaabta gaarsii. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin, ha idin wacnaado maalintu. waad mahadsantihiin.